بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من عظيم عقابه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه ومن اتبع طريقته ومن استنى بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى mahad iska leh gurigiisa ka mid ah inagu kulmiyey inagoo dikriga iyo xuska ilaahay subxaana wa tacaala wax ka sheegayna, inagoo isxasuusinayna in bishii barakaysneed ee ramadaan, bishii khayrka, bishii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa soo dejiyey, bishii barakaadkii iyo raxmaadkii ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu hadiyad uga dhigay, inagoo sugayna, rajaynayna, ilaahayna subxaana wa tacaala ka baryayna inuu inaga dhigo kuwa bisha xaadira ka qayb gala iyagoo caafimaad qaba, cibaadaysta, ilaahayna subxaana wa tacaala ka rajeeyo inuu ka aqbalo rabbi subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, cibaadadan soonka la yidhaah waa cibaado keligeen aan laynagu amrin inaynu ku cibaadaysanno. waxay ka mid tahay cibaadooyinka yaryar ee dhifka ah ee ummadihii nagu horreeyey sidii ilaahay subxaana wa tacaala inoogu farad yeelay, iyagana ugu farad yeelay. sheekh mubaarak imika aayadii uu akhriyayay, acuudu billahi min ashaytaani rajiim. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. dadkii iimaanka laga helayow, ilaahay korkiina wuxuu qoray, wuxuu amray soonka inay la timaadaan gudtaan siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku amray qowmkiidii ka horreeyey ama aqwaamtiidii ka horreysay. maxay tahay rajada aad ka rajaynaysaan? waa sirta ugu horreysa ee asraartan soonkan caawa halkan u soo fadhiistay, iyadoo mawduucu ka hadli doono asraarta ku duugan soonka, lacallakum tattaquun. soonkan gebigiisaba waxaa laynoogu farad yeelay, aynu ka faa'iidaysanaynaa. ila markaa arrin aad la timaadid, arrintaa rajaad ka qabtaa, faa'iidaad ka doonaysaa, macaash baad ka rabtaa. arrin walo qofka bini aadamkii uu ku dhaqaaqo waa arrinuu wax ka doonayo, ama mid dunyawiya ha ka doono ama mid aakhirada ha ka doono. soonka taqwada ayaa lagu helayaa, taqwada ilaahay, lacallakum tattaquun. waxaynu u soomaynaa, aynu u rajaynaynaa, aynu u sugaynaa inaynu taqwada ilaahay helno. taqwadu maxay tahay? haddaan soo fudaydiyo, in ilaahay aad rumayso, camal saalixan aad la timaado. cali radi allahu canhu keyrkiiba tacriif fara badan buu sameeyey, alkhawf min aljaliil walcamal bitanziil. tacriif fara badan baa jira, laakiin tacriifta ugu fududii waxa weeyaan taqwadu maxay tahay? inaad ilaahay ka cabsato, amarkuu ku amro inaad la timaado, wixii uu kaa nahayey inaad ka joogsato. taas weeyaan sirta ugu horreysa aynu ka faa'iidaynaa waxa weeyaan soonka. walaalayaal, ummadihii inagu horreeyey sidaanu sheegnay soonka sideennoo kale ayaa loogu amray. walidaalika waxaa laynoo sheegay, shacbi iyo qataadiya keyrkii bay nagu yidhaahdeen, ilaahay nebi muuse iyo nebi ciise wuxuu ku amray inay soomaan ramadaan. dabeetna dadkii la shaqaynayey, dadkii atbaacda u ahaa ayaa wax bedelay, bedel bay la yimaadeen. muxuu ahaa bedelkii ay la yimaadeen? axbaartoodii 10 cishay ku dareen. 30kii ilaahay ku amray inay soomaan ayaa qolooyinkii axbaarta ahaa ee la socday hadday ciise tahay ciise waaba in laynoo sheegay
كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ويكي إلهي نوشي marka xawaariyiinta ama axbaarta ayaa waxa weeyaan 10 cisho ku daray haddana waxa la yiraahdaa xawaariyiinta ama axbaarta qayb ka nin kamid ah oo culamadoodii ah ayaa xanuunsaday ninkaasina nadri buu galo wuxuu yiri hadii ilaahay caafimaad siiyo 7 ku daray 7 naftiisa ugu dari maayo kii horena 10 naftiisa ugu darin ummadii markaa joogtay soonka 30 laga dalbaday ayay taxriifiyeen ay ku dareen 10 iskii kale xanuunsanayay ee axbaarta aha 7 waan ku daraya haddaan caafimaado 7 ku daraya 7 baa lagu daray imsay noqotay imsay ashii soomayn ya 740 soddon lagu amray 10 axbaartii mid kamid ku daray iyo 7 kii kale xanuunsaday waan ku daraya ku kale hadana yimid wuxuu yiri saddexda hadhayna daan iskaga daro reer bani Israa'iil iyo qowmu Ciisa labadaba aynu ku amarno inay 50 cisho ay soomaan sidaas dabeetana taxriif ay ku dhacday oo soonkoodii uu 50 maalmood uu noqday fadliga soonka waxa ku cadeynaya inuu ahaa cibaado maryam alayha salaam oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amrayna soonto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إنه مضيه رئيسومي كرتي وحكو عضينيسا عيادة عضينيسا إن مريم إلهي سبحانه وتعالى وكو أمري إني نذري قاسون كاي لا تمادو عندنا أنا لهذا نبي قلنا شيء صلوات الله وسلامه عليه النبي داود وسومي شري ولي بس كإن بدن وسومي شري نكي صحابي قاية ويمد كويري صوم بدن بانكري كريا محو كويري عداد واحد كلك قرن ويدو ونكي مالو بوسومي شري سنة قدام طيب ترى النبي قال كقبطيو كويري عدي عاد واحد كلك كري ويدو waxaad soontaan soonkii nabi daawud ayaad soomaysaa nabi daawud soonkiisu muxuu ahaa siduu soomi jiray nabi daawud barakallahu fiik nabi daawud baa inuu soomi jiray ma inuu waafuri jiray sidii xadiiskii sahih muslim min xadiis abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma bishan barakaysan ee ramadaan waa bil macaashi fara badan la kala helayo maxaa loo kala helayaa macaashada fara badan waayo cibaadada soonku waxay isku darsatay laba arimood inay rukni arkaanta islaamka kamida ay tahay oo tiirarka islaamka kamida oo qofka bani aadamka aanu muslim ban noqonayn hadii aanu soonka la imanini waa mid ta kale muhiimka ah walaalayaal ay dadku ogeyn soonka ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga isu nisbeeyay wuxuu yiri xadiiskii qudsiga ahaa as-sawmu li wa ana ajzi bih soonku wuxuu kamid yahay saddexda cibaadood ee waaweyn ee ajarkeeda iyo xasanaadkeeda ilaahay u qariyay ajarkii xasanaadka cibaadada inta farabadan qofku uu yahay sida jabal uhud dahaba inta qofku wuxuu helayaa maxay jabaleekii oo kale caynkaasa wuxuu helayaa 100 xasanadood baa loo ayaa la siinayaa 100 sayi'aad waa laga bedelayaa dambigiisa oo dhan baa la dhaafayaa si ay aday xitaa xunbada badda kal badato inta badan cibaadaadka iyo wixii ilaahay uu ballan qaaday arrin walba xasanaadkeedii ajarkeeda wad helaysaa waad ogtay saddex cibaadood hada jiro ku soo celiya saddex cibaadood ayaa jira oo qofka bani aadamkii ajarkeedu badan yahay laakiin ilaahay mooyaan cid kale aan ogeyn soonka kamida as-sawm li wa ana ajzi bih soonkana iskale adoonka inuu soomaya abaal marinteedana aniga bixinaya ama celinaya ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu sheegay xadiiskii saxiix ahaa ee qudsiga ahaa muxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u sheegay inuu soonka isagu iska leeyahay isaga khaas oo u yahay waxay culimadu yiraahdeen laba arrimood darteed arrin soonku qofka bani aadamka ah shahawaadkiisii iyo naftu waxay jeclayd ayuu ka qabanayaa waa mid aan cibaadada kale ka qabanayn waayo adigoo sooman ma zinaysan kartid adigoo sooman تم خبر ما عبي كريسي دو ماضي كان صوم ما بافك وحنا قلنيسيد لكن هذيك تكنيا وزنيسن كرتا خبر لو عبي كرتا marka cibaadada soonku waxa amarkeeda sida looga dhigay waa cibaado qofka bini aadamka shahwadiisa xirxiraysa
oo qabanaysa oo waxa weeyaan meel geynaysa arinta labaad soonku waa sir qofka bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxeeya isagu ba arkaya waxa leedahay soomanahay gurigaaga tagaysaa waxaad u cunaysaa soonku waa arin adiga iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka dhaxeeya laakiin cibaadaadka inta badan waa la wada ogyahay zakadii baad bixinaysaa cidii aad siinaysaa haday ugu yaraato qofkii aad sadaqada siisay zakadii baan ku sheegaya salaadii baad adiga masaajidka imanayna tukanaysid waa la arkaya xajkii waa adigan diyaar garoobaya tigidhada goosanaya baxaya soonku laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa cibaado adiga iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka dhaxaysa cid allaali cid og oo arinta faragelin karta haba yaraatee ma jirto markaas aynu sheegnay soonku ummadii naga horeeyay cibaado ahaan buu ahaa soonku laakiin cibaadooyin kale uma ahayn sujuuda boqoradooda ay sujuudi jireen sadaqada cid kale siin jireen xajka qof kale ayay u bixin jireen laakiin soonku ummadii naga horeeyay sideen oo kale waxa weeyaan cibaado ay loogu talagalay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu kaliyeeyo cid kale lagu caabudi karayo soonka Ilaahay baa lagu caabudi karaya cid kale way tukan karaan cid kale way sujuudi karaan cid kale sadaqa way siin karaan cid kale xajkan tagaynaa baa oran karaan laakiin soonku wuxuu kaga duwan yahay waa cibaado Ilaahay mooyaane qof bani aadana aan qof bani aadamkii u geyn karin asraarta soonka walaalayaal waxa kamid ah soonku dabeecad ta malaa'ikta u dhow ayuu leeyahay maxay tahay la yakuluna wala yashrabuun waxna ma cunaan waxna ma cabaan qofku intuu sooman yahay dabeecad ay abuurta Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaameeyay dabeecad ay leeyihiin ayaa waxa weeyaan qofka saa'imka uu leeyahay aan wax cunayn waxbana aan wax weeyaan aan cabayn waa sir asraarta soonka kamid ah inaad muddada aad sooman tahay aad malaa'ikta dadka la mid ah aad la dabeecad tahay waxa kamid ah asraarta soonka walaalayaal inay farxad imanayso xilliga qofka bini aadamka uu afurayo farxadaana qofku inta badan xilli aan ahayn farxada noocaasa waa farxada uu gaajoonayo shahwadiisii iyo cuntadiisii uu iska ilaaliyay mar allaaliya marka loo fasaxo qofka naftu waxa weeyaan way farxaysaa farxadaana marka kaliya farxada noocaasa qofka bini aadamka markaas oo kaliya ayuu helaa ولذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم كسغنا للصائم فرحتان قفك صوم لبا فرحدود بوليه فرحه عند فطره فرحه قفك فرحيا marka cuntadiisa ambusiyo quraaciyo xabxabkiyo wixii la soo hordhigo wa farhatun inda liqa'i rabbih farxada labaadna wuxuu farxaya qofku markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa soo istaago ee Ilaahay jalla wa ala nimcooyinkiisi iyo abaalmarintiisa ugu talagalay oo siiyo Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa kamida asraarta soonka inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uga dhigay dawo dadka aan xaaska lahayn dadka singalka ah ee guursan ee sababtu tay doontaa noqoto ama dhaqaalo ama gacan la'aan ama waxay doontaa noqoto yani aan guur xalaal aan wali helin waxa sira inuu soonku noqday mid caafimaad ah mid dawo ah shahwada way saarugna shahawaadku qofka bini aadamka naarta ayay u dhaweysaa صومكي بعد ما يدري شهوتي لا دغالميا يا معشر الشباب حديث صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يا معشر الشباب لا يروا من استطاع منكم الباء قفكي كريا waxa weeyaan caafimaadkiisa iyo raganimadiisa iyo xoogiisa uu dhameystirayay albaa taasi ku fasiraan faliyatazawaj ha guursado wa amar rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu amray وامر النبي النواب عليه الصلاه والسلام فليتزوج يقول سذو فان لم يستطع هدي غوركي وكري وايو صوبته تدونتها نقطه مخو النبي علاج uga dhigay oo sir uga dhigay فعليه بالصوم هالصوم فانه له وجاء والى وحرق وسوتغاشان اد iskaga ilaalinayso muharramaadka iyo shahawaadka iyo zinada iyo balada iyo eegida waxa iyo carabka iyo indhaha iyo dhaga inta soo dhan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga xijaabaya inta sooman tahay waa doorsantay inta sooman tahay shahwadaadi waxa weeyaan way ilaashantay ولذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام من حديث المؤمنه عائشه رضي الله تعالى عنها
الباني في سلسله الصحيحه اكو شيغي عائشه waxay tii nabigu wuxuu yiri an-nikahu min sunnati nikahu sunnatayda ayuu kamid yahay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni qofkii sunnadayda nikaaha la iman waaya aniga igama mid aha tabtana muxuu ku daray tazawwaju ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam alwadud alwalud qofka dumarka jaban ee wanaagsan ee wadageeda marxabaysiinaysa ee wadud qofka qalbi xabxabka ah ee soo dhaweynta fiican ee jaban taaguusada buu yiri iyo maxay kale ku lifaaqay alwalud taylmaha dhalaysa guursi waxaad arkaysaa in dhalinyaro ah oon caruur ba lahayn oo isagoo sheelaata jiso dun jira koolana nabigu carmaltu u duceeyo 60 jir guursanaya aan caruur dhalayn taayna qofku marlabaad iyo saddexaad wax ka dhigto laakiin nabigu wuxuu nagu amray walud ee dhalaysa يا أولاد إلهي كاسينيو أيها دمك هربي سكوا قبليسا تطبع ذركيسا سو ودوفو سو سودنشرا تدباتنشر يلي حنشر قول سنية سيتيجر كابو صادر توي باسبور صبي يوروب جيسو مركز صدود دولا كعرية وحضر كيسا ده ودودة قول سنية شيء دامد قول شيء دامد قول سنية قيلة بدن قحر بدن قوريجا وحويان قفي كم يا رئيس سنيو هبيك يدد باكرة طريقة مركز مرة قوريجا سكودوين الكاك إيه داقدينا شيطان تهاي دينا سيحتي ينكلوا سكيجيا مركز سيحتي كل جليا ودود دي معها وحولوا النبي يقول نوامره وحولوا إلهي سبحانه وتعالى نوامره عدينا كوي عنه على إسباي مريا النبي يقول حكوا ودود ولود قرصو عدد ودود دي شيطانكم بدلته هذه هم قاعد كداية أما الرقالة كداية أما السفر كداية خسارة فوق عيسى عدد ولود دي كتكتنا تعروا الآن بعد وحويان شويسة عروتنا وزينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا بيقول الله سبحانه وتعالى مركا لما ضاع الريموت الله فيرصدو الودود تمحي كانيسا انه النبي عليه الصلاه والسلام انه كفاني دونه وانه امده كفاني دونه النبي عليه الصلاه والسلام وحال النبي قيامها ما انت لقتيهي انه قاونهي aynu banka weyn taaganahay waxa imaday buu nabigu kaleey salaatu wasalaam nabigu kaligiis socda bila qoom ba kaligiis u socda nabi waxa imanay nabi mid la socdo mid nabi laba la socdaan nabi walba number yar oo la socda ayaa la arkaya maalinta nabi maxamed kaleey salaatu waxa la arkaya dabeetana qiiq yasiigo bug tahaysa markaas nabiyadii iyo dadkii meesha joogay war ummadan maxay ahayd ummadan tirada badan leh maxay ahayd markaas la oranay hadi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadani waa ummadii nabi maxamed alayhi salatu wasalam marka awlaadu waa barako iyo nimca ilaahay nasiiyay haynu daydayno haynu ilaashano waa arin xaqiiqatan muhiima hawo ilaashanin si loo yiraahdo reer hebel way tirabadayeen ama hebel caruur badan buu leeyahay waxaad u ilaashanaysaa adigu inaad sunnaha nabiga sallallahu wasalaamu alayhi inaad raacdo oo tabagasho oo tatbiiq waxa weeye arinta taa aad ku samayso marka waa min asraarta soonka ay ka mid tahay arintaas waxa asraarta soonka walaalayaal ka mid ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sooman uu u diyaariyay albaab gaara ay ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sooman u diyaariyay sideed albaab ma leedahay albaab saayimiin dadka sooma faradka iyo culimadu waxay yiraahdaan sunnahaba albaabkaas loo furaya markaas la soo galbinaya markaas albaabka ka soo galaya waa sir ilaahiya waa nimco ilaahi subhanahu wa ta'ala nimco bixiyo in albaab gaara sadaqada loo sameeyay in albaab gaara salaada loo sameeyay in albaab gaara soonka loo sameeyay albaabadii markuu nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam xadiiska saxiixaha حديث صحيح البخاري بكتله أيوة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومشى فرديا خير هذه الأمة محويري نبي الله مشرا قف الباب هذا صور نكو ذا قال كراه والباب كي صون الله بلقيه وكي صلاة الله بلقيه وكي صدقة الله بلقيه وكي كلا الله بلقيه ها أبو النبي عليه الصلاة والسلام نعم وتكجل كرتا ولا كجل كراه أبو النبي وأرجو أن تكون منهم وحنا رجينا إلهنا سبحانه وتعالى بريا إنها تكمل نقطه أبو بكر لا نبي مر وحقوق بلن قاضي إنه شنو ذا قليه حديث كنا وحقوق بلن قاضي إنه النبي إنه أبو بكر الباب ذا شنو ذا أنت ما وحويا إنه كقليه سماها حديث كنا يسقون الشري ما أنت قفي شدي صلاة بتو كذا
قف maanta ma sooman yahay qof maanta qof xanuunsanaya ma siyaartay qof maanta meed ma raacay xadiidka waa maqashay Soomaha kaasina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ba intii bay yiri aniga xadiidkan in laftarkiisa in lagu dadaalo weeyaan oo hadaad maalintaas isniin iyo khamiis hadaad soonto maalinta qof miskiinana in yar oo zaada u dir janaasana daydayo hadaad kala xabaash iska tagto cidun baad janaaso baad la kulmiye waayo waa acmaasha yar yar ee haddana xasanaadka faraha badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa weeyaan ee laga helayo asraarta ku duugan walaalayaal soonka waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka sooman 7 khariif ama 7 sanadood ilaahay subxaanahu wa tacaala wajigiisa naarta kaga badbaadinayo naarta walaalayaal way kulushay toynu xamili karayna maaha axaadiistu waxay noo sheegtay in naarta 100 sanadood dab lagu shiday ay cadaatay oo 100 sanadood dab lagu shiday oo ay casaatay oo 100 sanadood dab lagu shiday ay madoobaatay muxuu xadiisku ku dhamaaday fahiya sawdaa mudlima ayuu nabigu salawaatu Allahi wa salaamu alayhi waa madow mugdiya ayuu nabigu ku sheegay alayhi salaatu wasalaam naarta jahannama wal iyad billah Allah dhamaanteen baa inaga badbaadiyay marka kulaylka naarta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka saa'imka wajigiisa 7 khariif 7 sanadood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga fogeynaya waa sir min asraar as-sawm soonka asraartiisa waxaa ka mid ah in qofka bani aadamkii bisha barakaysan ee ramadaan hadduu soomo wuxuu yahay sidii qof imsa bilood soomay qofka bisha barakaysan ee ramadaan sooma ajarkii xasanaat ahaan marka loogu dhufto imsa bilood buu soomay ya كيف تبلغ هاو ما شاء الله وصح طبعا بلاد أي قف السومية لحظة شوال مكان لقول دلنا معين غنيسة صنت ربيع تبلغ ووحى النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر دهري وحى الغوضاء صنت مركا أسرار تنوحى كم ذا إنه بني آدم كل موذى يبشر رمضان دو صومه إنه بال صومي لكن أي حق بالبات صومتي حق الدالكة يد ذلك بالبات صومتي لكن حق أجرك هي حسناتك هي أبال مرنتا أدي الله سبحانه وتعالى في ساد كهليسو وحتى يقف صومي طبعا بلاد وأنت سوارين حقيقة هذه مهمة الرمان أسرار تنا الشيء يا مدول با كل جد بيكف لنتهي إلى إنه كف رحنا إنه بيشرب من صوص عطه إلى إنه سود وينه إنه قلبي جاي لابته وأفرنا وياه كذلك وحكم إذا أسرارتها صيامك إنه يهيب إلهي سبحانه وتعالى ضدك ويسود وياه كالقعيل كفربته ولا تلمذ أي زايد نقطه اعتصام بحبل الله حرق إلهي لو سوى ذا دواذو أي تاي أو ولا تلمذ أي زايد نقطه عليس كنا ويراضو وعليس كم هو يرانيا شياطينتي ووينيد بالنجح الحرية مرض الشياطين أي الحرية dadkii isleen jiray dagaalkoodu waa yari ama ma jiro dadkii isku qaylin jiray qayladooda ma yaraatay ama ma jirto dadkii iscadaawadeyn jiray ma jirto dadkii ganacsiga iyo businesska sanadka intiisa kale iscunayay bishaawi kala degaan siyaasiyiintii qaaqda hayay ee habeen iyo maalin shir jiraayad qabanayay ee isradiyayay ee mid kursi ku fadhiyay mid kursi ka kacsanaya ka kicinaya ay yihiin waxa weeyaan bishaawi habi hadda u fiirsada shir jiraayad la isma qabsado لا اسم الله يو مدحوين لما يريدو وسيل الحكومة لما يريدو معارض لما يريدو وبلدك كلا دقيين ودلكو دقيين وددكو دقيين وحسلوني يو مرحبا يسيني ماشي كذا عظيم وددكو صلاة وتراويح كو عريان وددكو صلاة جمعي كو عريان وددكي نايم مساجد كو صلاة فلان عريان وددكي ولا سو شيغيان وتبقى عشاء قدام بينا صلاة الليل لو ديار قروبي وخطبة جمعيه معنا لهذا ومساجد كي بوحو او صلادي اي بدن tahay waxa ayaan daraa in ramadaan ay noqotay bishii dadku kaliya cibaadada u diyaar garoobayeen maskaxdeena waxaynu ka saarnay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala 12 bilood buu ina siiyay
oo 12 bilood ba ay qasab inagu tahay in cibaadaysano bisha ramadaan fadlu zaman bay leedahay fadliga zamaanka inay bir ramadaan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha quraanka soo dejiyay in nabigu kaleey salaatu wasalaam bisha wax bixin jiray oo faxalaha fadli gaar ah yeelata bishaasi laakiin 12 bilood ay kala ba waa bila ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay in ciddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum culimadu aad bay waxa weeyaan uga kitaab adwaa al-bayaan iyo qofka duu akhristo suurada tawba tafsiirkeeda ayada markuu akhriyo عجب العجيب وحويانيو kala kulmaya haloo noqdo insha Allah ta'ala marka bishaasi waa bil dadku samaan galiyaan dadku isu dul qaataan dadku xumaanta liqaan waayo kabiirkii ba maqan oo shaytaankii weynaaya shaytaanka weynays sanadkoo dhan waxa weeyaan culayska dadka saaraya ee dhibaya isku diraya kala kaxaynaya bisha fasax buu qaataa فكيشن بينهم بشاف بالفكيشن بقاطع بالفصح وقاطع عيد أي حيان يوصل نقضاء ولا ليال وحاكم ذا بشا أسرار تيذا وحاكم ذا إن قفكوا إلهي وقلت لك لي إنه قفكوا دردميو كذا حراتك يا دردميليا كسنة أنت كلا يسكت الضلية واحد تتبادر كيسان صدق شيء القرآن مالتي laba jeer qadeeya cashadana 3-4 jeer casheeya meel Allah meel wax ku wadaan adgarani dad baad arkaysaa sheekadooda iyo warkooduba cunto baan u dhaafsiisnayn quraacdii markuu cuno xaajadiisa la soo hadlaya 10 jeer isagoo suuqa jooga qadada maxaad karisay kaayno kari ka farfal ka dhig ka halkan inoo gali ka bisbaas ku dar subhanallah taasina dadku ka nasanaya waxa qofka iimaaliyo waxa soo kala ilaa waa laga nasanaya shahwatu ta'am wa sharab wa shahwadaha ugu xun qofka bini aadanka ah aduu ya aakhirada meel xun geysa way qofkii caajis uu noqonaya cibaadaadkii uu caajis ka noqonaya dad la xiriirkii dadka uu caajis ka noqonaya cudurriyo xanuuna ku dhacaya iyo waxay wacid bilaa wixii lamida marka soonku qofka bini aadanka gaajo dareemaya gaajo marka dareento miskiinkii jaarkaaga ahaa kii baahnaa ma sahlana qofku inuu masaajid intuu soo istaago halka uu wixna weydiisto arintaas arin sahlan maaha boqolkiiba 10 laga yaabaa inay ama been sheegayaan wixii la mid ah laakiin 9 wixii kamid ah qofka halkaas soo istaagay waa qof baahan waa qof inoo baahan waa qof fa'ina mooday inaanu dad wax tar karno imka ilan goodhow soo haleysay waxay tir caruurteeda waxaan dabka u saara ma haysto baahidii baa badatay sicir bararkii baa batay roobkii baa yaraaday culayskii baa dhinac walba inaga dhacay waxaynu u baahanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo soo noqdo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala la weydiisto inuu bisha barakaysan si gaar ah inuu ducada u badino Ilaahay subhanahu wa ta'ala culaysyada faraha badan leh ee ummadda ku habsaday si gaar ah ummadeena ugu habsaday in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga qabto qala ja'alni ala khazaa'in al-ard inni hakiimun alim soo ayad samayn cilmi iyo xikmad ba ayuu isbaday marka maxaa dhacay isagoo dib waa kalimaha waxaynu ku tilmaamaynaa wasiirka nooc min wasiirka maaliyadda oo kale wasiirka qorsheynta iyo maaliyadda labada wasaaradood la isku daray oo kale ayuu ahaa ninkii la oran jiray Yuusuf alayhi salaam waxa la sheegay Yuusuf inuu maalintii mar wax cuni jiray maalintii hal mar buu wax cuni jiray waxa lagu yiri Yuusufo maxaad maalintii mar wax cunaysaa khazaa'in Misr labaad khasnadihi Masar gabigeeda baa gacanta ku haya micnii miisaaniyadii dawladda gabigeedaba adaa gacanta ku haya sidee u dhaceen sidee u dhacda baa lagu yiri khasnadihii dawladda ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala adaaba gacantaada ku dhiibay sidee maalintii wax u cuni hadaan wasiir noqon ka warama qorsheyntii maaliyadda la noo dhiibo maalintii keen ugu yar 6 jeer buu cuni lahaa hal mar buu cuni jiray wuxuu yiri waxaan hal mar wax u cunayaa si aan u gaajoodo marka aan u gaajoodo aan u ogaado buu yiri waxaan ka baqay inaan dargo buu yiri fa ansal jaa'i'a waxaan ka baqay inaan dargo inaan ilaabo qofka gaajoonaya markuu mar cuno hada uu gaajoonaya marka qofku markuu dawarsada ama wax weydiisto ilaa isagii baa gaajoonaya mar walba ayuu waxa weeyaan qofkii wax siinaya walaalayaal waxa kamid ah asraarta soonka caafimaadka guud caafimaadka qofka bani'aadamka markuu cuntadiisu yaraato uu dhuubanaya calooshii ayaa wax ka dhacayaan shirkaagii kale ayaa wax ka dhacayaan
xaydii meelahan saarnayd beerkiiyo meelahaas baa ilaahay subxaana watacaala uu ku dhaafinayaa xanuunadii dadkii xanuunka dhikarka qaba dadka sonkorta qaba dadka maxayda kolestaroolsha iyo subaga qaba ayaa waxa weeyaan garanaya dadka caloosha xanuunto dumarka caadada waxaasoo dhan dawo ayay u tahay soonku dawo ayuu yahay soonku dawo ayaa waxa weeyaan uu yahay marka qofka bani aadamkii wuxuu u yahay jiim oo kale qof jiim tagay oo kale ayuu soonku u yahay qof soo lugeeyey maanta soo lugeeyey isagoo haddana gurigiisa iska jooga ayuu u yahay waayo cuntada badan culays badan bay keentaa xanuuno fara badanna waxa weeyaan uu la socdaa waxaa kadaalika barakada bishan ka mid ah waxa ugu weyne barakada leh ee ilaahayna siiyey walaalayaal waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala markaas asraarta soonku waxaaba ugu weyn kitaabkan dastuurka inoo ah goormaa waxa weeyaan kitaabka la soo dejiyey شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي الله سبحانه وتعالى وبشي لهي دستور كاينو زودجي ودستور كاينو كتغني ودستور كاينو كعررني ودستور كاينو دستور هذا قال هذا كهنديكا إيه كإنجليزكا إيه كفرنسيسكا إيه كتركيكا وكاينو كقاضني اللي سوق جاي اللي لي فقرتها كوما جرتو دستوركا فقرتها دستوركا laga saaro taa dastuurka laga baaro taa dastuurka laga eego waa dastuur maxaya faqradiisa ugu horeysa waa ummad islaam oo boqolkiiba boqol muslim ah hoos hadaad u dhaadhacdana waa waxyaalo wada shahawaadka iyo shubahaadka bini aadamka caadiga ah ee ingiriiska jooga Australia jooga Mareykanka jooga ayun baa la mid yahay laakiin sirtu waxay tahay waa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo ay tahay in sidiisa lagu qaato sidiisa waxa weeyaan lagu weyneeyo asraarta soonka walaalayaal waxaa ka mid ah bishan ramadaan waa shahru tagyiir waa bishii isbedelka waa bishii isbedelka maxaa iska bedelaysaa caadaadka xun baad iska bedelaysaa balwadaha xun baad iska bedelaysaa fadhiga xun baad iska bedelaysaa saaxiibka xun baad iska bedelaysaa wax waloo noloshaada u fiicnayn dadnimadaada u fiicnayn adduunyadaada u fiicnayn qoyskaaga u fiicnayn magacaaga u fiicnayn aakhirana aan u fiicnayn xisaabtaada inay xagga xun noqoto ayaad iska bedelaysaa wax waloo salbiya un wanaagsanayn baad iska bedelaysaa ramadaan waxay ka mid tahay walaalayaal inkastay culamada nafsigu yidhaahdeen arrintaasi sax maaha bani aadamku markuu wax isbedel doonayo wuxuu ku xidhaa intooda badan dadku waqti bay ku xidhaan arrintaas samee waan samayn doonaayo markaan guursado ka hor samayn maayo waxaa wada singalkee bila xaaskii 10 mashruuc bay dib u dhigaan ilaa intay guursanayaan maalintii guursadaanay choice xun sameeyaanna maxaa bay tan bedeli habeenkii bay soo hoyanayaan xil la seexday culays kalaaba ku furmaya ilaahay culays naguma furee qof wal xaasan allah barakeeyo kii allah in mid khayr qabta allah siiyo marka wuxuu qofku oranayaa markaan guursado ayaa arinta bedeli muxuu oranayaa jaamacadda markaan ka baxo ayaa waxa weeyaan aan arinta bedeli muxuu oranayaa ramadaan markay timaado ayaa arinta bedeli ramadaan waxay ka mid tahay bilaha qofku markuu isbedel doonayo inuu sameeyo uu sii waqtiyeeso uu sii mudaysto uu yiraahdo bisha barakaysan ramadaan markay timaado waan joojini balwada noocaas ah waan joojini game kana ciyaarayo waan joojini turub kana ciyaarayo waan joojini dumradan ciyaarayo waan joojini jaskaran ciyaarayo waan joojini wax allaale wixii xunay oo dhan wax oranaya ramadaan wuxuu oranayaa markaan guursado wuxuu marxalad waqtiyeysan weeyaan dadku way bedelaan culimadu waxay yiraahdeen si qofka bani aadamkii si uu qofku bani aadamkii wuxuu bedelo arrin badoonaysa iska bedeshid laba arrimood uu qofka bani aadamku qofku isku bedelaa hada inta dhagtaa ii fura inta bilaa عليك point ka aad u fiirsada qofku markay arrin isbedel ku imanayo laba arrimood buu qofka isbedelku ugu yimaadaa kow asadma wa qab yaqacday shock qofka qaraabateena oo dhintay imtixaanaad galayso ku dhacday arrin aad rajaynayso oo weyday shock waa ku dhacay iyo naxdintii waxay keenaysaa inaad isbedel samayso ma tukan jirin cibaadadu ma fiicnayn qof saaxiib haydeen qof jaar haydeen qof isku iskuul haydeen qof isku jaamacad haydeen qof meelka wada shaqeynayeen ayaa dhintay janaasadii baad ka qayb qaadatay waxaad ballan qaadaysaa
inaanad dib dambe macaasi ula iman markaa ood salaaddii u bilowdo salaaddii qofkii muxuu ku biloobay sadmad baa keentay shoog baa keenay kaasi waa sabiilka ugu horeeya ee qofka bani'aadamku isku bedelo maraan yurub joognay baa salaaddii annagoo jimcihii gelayna ayaan arkay 10 qof oo dibadda taagan waa salaad jimce rubuc saaca ka harsan waxaan ku yidhi maxaa idinku dhacay maxaa la taagantihiin waxay dhammaanad maqal hebel baa dhintay hebel kan dhintay waa isku qabiil waa isku reer weliba dee reeraan dhaweyn oo walaal iyo naadeer iyo ruma maaha isku qabiilkaa sare halkuu doono intuu doonaha gaarsiisnaadee ayay reer hebel hebel bay isku sii yihiin salaadda ma tukanayaan hadda u fiirsada salaaddii jimcihee faradka ahayd ma tukanayaan salaaddii janaasadiina ma tukanayaan waayo salaadda janaaso marka salaadda jimcaha la tukadana meydkaanu soo dejinnaa halka barxadda dabadda lagu tukadaa taana ma tukanayaan maxaa keenay waxaa keenay yaan la odhanin hebel janaasada reer hebel ma yimaado ayu diinin haada ayu diinin haada waa arrin aan lagu soo arkay qabiilkii baa kala weynaaday raaligelintii ilaahay subxaana wa tacaala qabiilkii baa kala weynaaday cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala qofku caabudayay qabiil muxuu taraya walaalayaa wax allaale wuxuu taraya ma jiro marba haddaad aakhira tagtood xasanaad u baahan tahay inaad jannada ku gasho haddii ka isku qabiilka ahaydeen isku laandheera ahaydeen haddaanu midku xabad ku siinan keliya oonu jannadii kugu gelinayn maxay faa'iido leedahay inaad reer hebel aad tahay aad u hiiliso ood ugu dhimato ood ugu hagar baxdo oo doorasho isaga siiso ood iyaga wax u wada qabato maxay taraysaa wax allaale waxay taraysaa ma jirto camalkaagaa wax ku siinaya naftaada inaad badbaadiso ood aakhiradaada u shaqaysato markaad taada dhammaysananta qoyskaaga aad wax ka qabato yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum intaasun baa lagu yidhi naftaada iyo ehelkaaga wixii siyaadadii waa colkayga mimbarada ka qaylqaylinaysa oo ummadda isla wax gaarsiiya laakiin naftaada iyo ehelkaaga laguu diray qabiil laguma dirin reer hebel laguma dirin gobol hebel laguma dirin degme heblaaye laguma dirin waqtiya inaan iska luminin taada naftaada markay cibaado iyo aakhiro noqoto naftaada ehelkii iyo mucaamalaadkoodii dee baab bay leedahay litacaarafu qofkii hadday magi ay jirto hadday baahi kale jirto inaad dee qaraabada wax siisood wax u qabatood wax la qabatood u gurmato waxyaalahaasoo kale waa min addiin diintii taasi ka mid tahay oo taasi qabyaalad maaha waa qabiil iyo qabyaalad waa kala laba laakiin inaad naftaada iyo cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka horraysiiso qabiil inaad adigu aad badbaadadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu dhawaato taasina waxa weeyaan waa arrin khatara waxa weeyaan dhammaanteen bay iska ilaalino waxaan idiin waday qofku marka isbeddel ku dhacayo laba arrimood weeyaan tii hore maxay ahayd ya asadma talabaadee wax lagu badbaadaana waa aliqtinaac inuu qofku arrintaa ku qanco qofku isbeddelku markuu imanayo tu saddexaad maba jirto ama waa inay jug dhacday isbeddelkaa keento ama waa inaad arrintanaad isu beddelayso aad ku qanacsan tahay ood aaminsan tahay inay arrintaasi dee arrin saxa oo ku habboon ay tahay isbeddel kale uu haba yaraatee jiraa ma jiro bakatibuutii waxay keentay in bishii barakaysan ee ramadaan ay tahay bil iimaanku qofku u siyaadmo bil aakhiro ilaahay loogu dhowaado dembigii ilaahay kaaga dhaafayo xasanaad ilaahay subxaana wa tacaala uu kuugu waxa weeyaan uu ilaahay subxaana wa tacaala xasanaadka uu kuugu qorayo waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha asraarta soonka inaynu markaynu soomannahay raaligelinta ilaahay ayaynu ka horraysiinaa raaligelinta bani aadamka inaad ilahay subxana wa taala raaligelayso ayaa ka horraysa bani aadamka iyo naftaada inaad raaligelayso waayo xadiidkii muxuu nabigu xadiidkii saxiixaynka muxuu ku dhammaystiray xadiidku yadacu shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajlii markuu yidhi soonkaana iskale qofka baniadamkaana ka abaalmarinaya ayaa wuxuu ku daray inuu shahwadiisii iyo wuxuu cabayey tuu cunayey intaba uu aniga dartay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala uu uga tegey marka asraarta waxaa ka mid ay tahay inaad fahanto marba haddaad soontay raaligelintii ilaahay ayaad ka horraysiisay raaligelintii naftaada iyo mujtamacaaga asraarta soonka waxaa ka mid ah asabr soonka sabr baa laga helaa oo qofka bani aadamkii waxa weeyaan jasaa'igiisuna ay tahay in ilaahay subxana wa tacaala qofkaa saabirka ula socdo in allaha maca asaabiriin wasbir wamaa sabruka ila billah wasaabiriin walidaalika aayaddana muxuu sheegay assaa'ixuun aayadda ku jirta suurat الtawba
السائحون والصائمون بيقول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون سئل مورا الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بيقول الله سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين أداة سائحون تكملتها أو صائمين تأه وحويا بشارو أي إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة أيات كهليسة قول كان سفيان الثوري عبد الله بن سعيد بن جبير عوفنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي وحويا وكسوري مركز صبركم وأسرارته هو وين قفك بنادك الصوم كهليه أرنتك عليه وقفك السرعة قفك بنادك الصوم كهليه وحويا وحقفك الحسوسين نعمك إلهي سبحانه وتعالى وسيي نعمته دونتها النقطة نعم كاس أيها وحويا أسرار تيدا صونك كم ذا وحكم ذا أسرارتها سحورته إلى ذهي يقف بالآدم كي تسحروا فإن في السحور بركة أبو النبي عليه الصلاة والسلام أود بدليسا طاقات ليسا كذي باكو يرانيسا تعب كي باكو يرانيا أديها وحويا رانت حتى السحورا وحويا يقف هذاك الدوخات يمضى حنون يوحي لمذا حرات فربضا أو أيا لمذا أيا وحويا يقف بالآدم كا لسه درسيه لكن مركو سومية هي وسرتي أسرار تصونك كمذا إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها وحوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث الإمام أحمد سوري صحيحي العلامة الألباني سحورته وبركة إلهي سبحانه وتعالى إذن سيي هكتقنا أي النبي صلوات الله وسلامه عليه فكا اعتقاف كاسي أسرار فربضان أي وليه هاي سرك لا يذو لجرته إنه الله سبحانه وتعالى قريي ليلة القدر وليلة شرف بضن قيمة بضن إلهي كتاب كيسي سودة كيي هبين كاسو هبين مشهودة ويان محامرك هبين كان لو قريي وسرتيو ليبلوكم أيكم أحسن عملا سيدتكم يود ذالان وقفكم هذا كانوا هبين كان يونو عبادي سنة وطبعا كان هبين بو عباديستو ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة وحوي ليه وحا لو قريي هبين كان ليلة القدر سي لو كلا اوغادو qofka kaslaanka ah ee caajiska ah ee habeenka 7 hadii la masha Allah taala ilaahdo masagaala taala ilaahdo kaliya cibaadeysta iyo qofka 10 habeenba isku si yaani dhexda u xidha ee waqti galiya ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadeysta arinta labaadna wuxuu yiri arinta la qariyay waxa loo qariyay kathratu thawab almuslimin بكثرة الأعمال إن تذكر المسلمين تملك أعمال مركا تملك عشاء دداشو وتملك بعبادة الله تمادو تملك بأجري حسنات فربون بات كهي ليسا مركا حسنات كأي أجري أي إلهي سبحانه وتعالى وقفك بني آدم كأ وحيالا فربضا وحويا وكسي ليا صونكو ونمعون كإلهي سبحانه وتعالى كم ذا وأي تهي قفك بني آدم كي إنه إلى شره كذلك أسرارتا وحكم ذا أسرارتا صونكا إن قفك بني آدم كي عرب كيسي لالين أيوه وأدوق في عايو أدوق في أفلقات أيو أدوق في وحكا شيغو إني صائم ليه الباب كي شركة الباب كي شيطانك الباب كي حماها الباب كي كشخصيه الباب كي وحاكو صميه أي قفك بني آدم كبحية وقفك وحليه هاي سيدو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام مركو لي قفي عليس ولي مادو لباتو ولي مادو نفتي حسوسيه وحليه هاي إني صائم كذلك صومكو كرمضان كلا جودة وحا أسراتي سكمدة وكفاره قدش أيو قراه قفك بني آدم كي أدو هديك أدانو هديك ما كان حاجة تكتيت أدي أرد هديك هينين وردنا فات قشالة هي سنين تهيد متمتع أما مفرد أما وحويا قارنة هاي ورد هدي هي سنين معاد صمين ساعة وحويا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم صوم كذا الله يبارك ساعة قفك وحويا قف معاهد الدله أو استخارة الدله كفارة سوى صيام سيدي الله شيء قف وحويا سكون دارنا يا دارتي بينك شيء وحويا صونكي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة هذه وحويا وصلة ظهار وفدوا إلى هذا حاسكي كتابا مايو وحويا آية الظهار كبر الله إيمانيا ويذر كفارة وحويا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد محيل هيلي فصيام إمسا ظهار كم سنة تصوما يا فاطمة يا فصيام شهرين كسبحيه ولبا متتابعين من قبل أن يتماسى
markaa soonkii xaggaana kafaarad buu ka noqday oo runtii arrin aad iyo aad u weyna waxaan hadalkay ku soo koobayaa fursad baa inoo soo socota bil barakaysan oo ramadaan oo walaalayaal fursada oo jaanisa ayaa albaabadii garaacaysa ilaahay waxaanu ka baryaa inuu na gaarsiiyo walidaalika dadkii hore ilaahay 6 bilood bay bari jireen inuu ka aqbalo shanta ku xigtana waxa ilaahay bari jiray inuu gaarsiiyo tii gaarsiintii baynu ku jirnaaye ilaahay u tahay na gaarsiiyo oo ilaahay soonka Allah ina gaarsiiyo oo ramadaan inagoo caafimaad qabna Allah ina gaarsiiyo waayo inuu ilaahay ku gaarsiiyo adigoon caafimaad qabin dee faa'iido kuma leh sarata jiifaysa dhakhtarka jiifaysa laakiin ilaahay waxaad weydiisataa ilaahay anigu caafimaad qaba oo saxiixa oo caafimaadkaygu taam yahay ilaahay bisha barakaysan si fiican u cibaadayste igaarsay arinta kale ee muhiimka ah walaalayaal ku soo khatibaya العفو هل يتسامح العفو waxaan idin sheegay 3 arrimood ayaa jira ajirkoodu badan yahay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qariyay soonka kawka soom li wana ajzibe somaha takalana waa afwiga ومن عفا واصلح فاجره على الله اجر كاسيد يمنا نو sheegay leeno ma sheegin waa 3 arrimood uu qariyay ومن عفا واصلح فاجره على الله هل ليس عفيه هل ليس سامحه هل ليس دulqaato wixii xumaan oo dhan wax weeye sanadkii hore daadku ha qaado waxa loo baahay qof inuu qalbigiisa nadiif ah bisha barakaysan ramadaan insha Allah ta'ala ay bilowmato ilaahay waxaan ka baryaynaa cimriga iyo caafimaad iyo cibaadad toosan ilaahay waxaan ka baryaynaa acmaasheena ama saalix ka dhigo cibaadada wanaagsan oo sunnah nabiga kaleey salaatu wasalaam muwaafaq ku ah ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeena amni iyo amaan ilaahay inuu xasiloonida u siyaadiyo ilaahay inuu culaysadana haysta nooc walba siyaasiga iyo xagga dhaqaale iyo xagga dhaqan iyo dhinac walba waxaan laga haystaa culaysa ilaahay culayska dhamaatiisa ay naga badbaadiyo